roobabkii raxmadda guga ayaa ka bilaamay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag oo hore ay uga jirtay biyo la'aan baahsaniin sida uu faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Salaad oo nagu soo warma magaalada Xingalool. iyadoo guud ahaanba gobolka Sanaag ay muddooyinkii u dambeysay ka jirtay biyo la'aan baahsan ayaa waxaa habeenkii xalayto ahayd ay raxmadda eebbe maanshaysay degmada Xingalool iyo deegaanada ku xeeran. roobkan oo ahaa mid si weyn loogu diirsaday ayaa ilaa haatan inta la og yahay waxa uu saqafka ka qaaday mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Xingalool. Cabdi Samakaab waa mu'adinka masjidkan. waxa weeye 10kii habeenimo markii ay xalay waxa noo yimi roob dabayl leh roobkaas oo masaajidka ku yaala Aflax jingadii kala tagay roobkaas oo dabayl aad iyo aad lahaa waxa weeye roobka jingadii uu kala tagay dawaa aragtaa sida masaajidkii yahay jingadii waxana banaanka ka soo guray masaajid bariisan u soo guray waxana wali sidii uu saartay intii ku hartay sidii uu saaran tahay markaas masaajidka wuxuu gaaray wax kale oo wuxuu gaareen ma aanu maqalno hadda biyaha daadka ayaa dhex qulqulaya jidadka magaalada isu socodka dadka iyo gaadiidkana waa uu kooban yahay waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Xingalool oo ka warbixinaya roobka. asaga xamuun nuur waa jooga magaalada Xingalool waanu nabdoonahay marka ugu horeysa waxaanu u sheegaynaa magaaladaas inay qabowday hareeraheedana lagu qaboobay iyadoo qaraad baan ka jiray dhib badan waxa yaalaha waaweyn laba sheegay hal masaajid koobkaas oo dabayl lahaa hal masaajid waxa uu yeelay baa la yiri waana waxa mid ka badanna waanu malaysanaynaa insha Allah mid ka badanna waanu malaysanaynaa nabadgelyaduna guudna way fiican tahay ilaahay waxaanu ka barinaa meel kasta roobka in la gaarsiiyo oo helay oo aragtaan oo barwaaqo oo la najaxay waa Amina Saciid Baraal Caare oo ka hadlaya degmada Xingalool ما شاء الله حلي وقبوني ربنا داي وانا كعمني بيهنا في عام ونقدر صناي الحمد لله رب العالمين أنا وحنا لنا ولا لا كلام باريسن إلى هي مدة رب si kastaba ha ahaatee roobkan ayaa ahaa mid ay ku diirsadeen dad iyo dunyo cirkuna weli waa mid cusub dadka saadaasha yaqaanaana waxa ay leeyihiin waa ugu horaantii Maxamed Saalax TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Xingalool.